السلام عليكم. تاريخنا وكوي لباتنك بيش الرجب سنة كنا فربغلا فرطانية تضم تاريخ الهجرية وفي نما سبتي أحد يسوق ليس وانا طبعا كبيش كوات سنة لبكن لح يلباتن سو هذا عاوا ولي وحا غبنيسا gudaha dalka Iran waxana si xoogaysanay mudaharaadyada ka dhanka dawladda dalka Iran iyadoo dawladda Iran ay soo saartay war weyn oo arinta qusaya gudaha Iran waxa ka taagan wali xaalad cabsi badan mudaharaadyaashii reer Iran waxa ay laba jibaareen mudaharaadkii duqa magaalada Tehran iyo sidoo kale wasiirka amniga Iran dhamaan waxa ay sheegayaan in mudaharaadyaashu laga soo abaabulay gudaha Israa'iil sirdoonka Israa'iil uu qayb ka yahay xaaladda adag ee dadka reer Iran ay wajahayaan sida darteed waxa Iiraaniyiintu uga digayaan shacabka iyo dadka hoosta laga wado inay ka foojignaadaan talaabooyinka ay qaadayaan xaaladda cabsida leh ee ka taagan gudaha dalka Iran ayaa waxa ay tahay in dadweynuhu ay gubayaan xarumaha dawladda waxa la gubay xafiisyo ay leeyihiin qaar ka mid ah wasaaradaha dawladda dalka Iran waxaana la beegsanayaa wadooyinkii waaweynaa ee magaalada Tehran isku xireeyay mar kale xaaladaasi waxa ay gelisay hubanti la'aan mustaqbalka Iran Israa'iil sirdoonkeeda ee kan Mareykanka waxa ay isha ku hayaan oo ay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqa iyo xaaladda ka socota gudaha dalka Iran hogaamiyaha mucaaradka Iran iyo ninka sida weyn uga soo horjeedo Ayatollah Ali Khamenei iyo dawladda dalka Iran ee uu dhalay boqorkii hore Iran Shahs waxa uu isagu aad u danaynayaa in nidaamka Iran meesha laga saaro waxa uu ku talinayaa in Mareykanku ay qaadaan talaabo la mid ah talaabadii madaxweynaha dalka Venezuela lagu soo qabtay Maduro waxa uu leeyahay haddii sidaa la sameeyo waxa dhaqso loo soo afjari karaa xaaladda ka taagan gudaha dalka Iran waxa uu durbaba bilaabay inuu ku eedeeyo dawladda Iran inay dishay muwaadiniin reer Iran waxa uu sidoo kale sheegay inay xirtay kumanaan reer Iran laakiin dawladda Iran waxa ay ka digaysaa haddii xaaladdu sidaan ay ahaato dadweynaha reer Iran in dalkoodu faraha ka bixi karo oo cadow gacan gali karo Iran waxa lagu shiday dab gudaheeda ah Iiraaniyiinta shacabka waxa ay wajahayaan xaalad faqri ah shaqo la'aanta ayaa qadka ka sii baxaysa oo aad si weyn ugu baahday gudaha dalka Iran si kastaba ha noqotee Iran waxa ay gashay dagaal waxaana lagu hayaa cunaqabatayn ay ka dambeeyaan dawladaha reer galbeedka tani waxay u arkaan dawladaha Mareykanka iyo Israa'iil inay tahay fursadii looga argoosan lahaa dawladda Iran iyo nidaamka iyo hoggaanka Ayatollah Ali Khamenei lama garan karo waxa uu ku dambeyn doono mudaharaadyada hadda socda laakiin dadka arrimaha bariga dhexe iyo kacdoonada aadka uga faalooda waxa ay leeyihiin waa qatartii ugu weynayd iyo halistii ugu weynayd taariikhda Iran soo martay waayo Iran waxa suurtagal ah inay gasho dagaal sukeeye waxa sidoo kale suurtagal ah Iran inay gacanta Israa'iil iyo Mareykan ku dhacdo sidoo kale Iran waxa hadda gudaheeda ka socda laba mudaharaad oo kala duwan qaar dawladda taageersan iyo qaar ka soo horjeeda dawladda absida sidoo kale gudaha Iran laga dareemayo ayaa waxa ay tahay in mudaharaadyaashu ay bilaabeen inay gubaan goobaha cibaadada gaar ahaan masaajida waxa shalay iyo maanta la gubay ugu yaraan 7 masaajid oo ku yaala gudaha dalka Iran qaar la baabiyay iyo qaar dab la qabadsiiyay oo ay waxyeello soo gaartay taas oo dhamaan muujinaya in mudaharaadyadana yihiin kuwa ka baxsan Iran gudaheeda suurtagalna ay tahay inay ku lug leeyihiin dawlado banaanka ka ah Iran waaya saaxiibaday walaalaha qiimiga loo qodobka ay qodobkii ka horeeyay dhamaan qodobada markaynu meesha ugu gudubno waxay noo soo socdo qodobo xiiso leh oo ay ka mid tahay muuqaal uu dubay wiil Soomaaliyeed oo buuq badan dhaliyay sidoo kale dekada Barbaro iyo sheeko yaab leh aan idin hayo Imaaraadka Ingiriiska arinta ku lug leh laakiin marka hore aynu ku bilowno wiilka Soomaaliyeed wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo loo malaynayo in markii uu duubayay muuqaalka buuqa badan dhaliyay inuu iska ciyaarayay ayaa muuqaalkiisa hadda waxa uu noqday mid halis weyn gelinaya Soomaalida Mareykanka sidoo kale wiilkan waxa uu muuqaalkiisa dhaliyay in looga faa'iideysto dareenka dadka cadaanka lana tuso in dalkoodu uu ku jiro halis isla markaana la doonayo in cadaanka looga gado in dalkoodu ay ku soo duuleen Soomaali haddaba muxuu sameeyay wiilkan Soomaaliga muuqaalkiisa hadda waxa uu dhex wareegaya baraha bulshada gaar ahaan barta X-ka waxaana dadka sheergareeye ka mid ah ama sii wasacay oo gaarsiiyay meelo kala duwan Elon Musk oo ninka adduunka ugu lacagta badan Elon Musk waxa uu leeyahay xaqiiqda jirta waatan haddaba maxay tahay xaqiiqda wiilkan waxa uu leeyahay dadka cadaanka ayuu caynaya wuxuu leeyahay waxa tiin kuwa aan aqli lahayn waa aflagaadeynaya wuxuu leeyahay shaqeeya idinka daala dumarka cadaanka oo daala ragga cadaanka oo daala dabaala ayaa tiin aniga waan iska jiifaa lacagtiina ayaan dhuuqaya wuu caynaya macnaheedu waxay durbaba soo qoreen
kooxaha cunsuriyiinta xagjirka uu ka mid yahay Elon Musk iyo kuwa kale in wiilkan uu leeyahay 7 daycare 7 goob oo meelaha ilmaha lagu hayaa ama lagu xanaaneeyo dawladdu ay maal geliso oo malaayiin ay ku bixiso goobahaas oo loogu talagalay in ilmaha looga faa'iideeyo laakiin hadda lagu eedeeyo Soomaalida in goobahaas lacagaha ka imaada ay dhacaan oo ay xadaan waa eedeyn Soomaalida lagu eedeeyay inkastoo gooba sidaas oo kala been laga sheegay la ogaaday inaysan run ahayn waxay cadaan ka sheegeen oo dambiyo koox Soomaalida kamid ay galeen Soomaalida oo dhan loo saariyay ama madax loo galiyay baleelada wiilka Soomaaliga waxa uu ku hadlayo Thank you for working so hard so I can be home all day free. I can use my EBT. Go to work for me, white boy, white girl. Yeah. sida aad maqlaysaan wiilkan waxa uu ku hadlay hadal aan aqli iyo maskax fiyo ka imaanin waxa uu ka yimid qof aan ka warqabinba meesha uu ku nool yahay dadka uu la nool yahay waqtiga uu nool yahay waxa uu aflagaadeynaya dad deegaankoodii dhulkoodii u yimid waxaana intaa ka sii daran ma ogo in dhibaatadan ay ummadiisii dhan saameynayso ma ogo in isaga shakhsiyan lagu maxkamadeyn karo mana ku baraarugsano in uu abuurayo cadow ka sii jeedo isku soo jeedinayo mana oga xilligan in ay tahay xilli dadka Soomaalida ay toosh badan hayaan indha badan ay ku soo jeedaan si kastaba ha noqotee muuqaalkiisa waxa uu noqday mid si weyn loo shawargareeyay si weyn looga faaloonayo maxaan u soo qaadnay sababtaan u soo qaaday adigana aan rabo inaad dad kale la wadaagto waxa ay tahay war waxa aad social media soo dhigaysaan baraha bulshada aad soo dhigaysaan hadal aad iska hadlaysaan ayaa dad waxa ay u samaysanayaan macno kale waxa ay ka leexinayaan ujeedada hadallada qaar oo aad isleedahay dadka iskaga dhici ama iskaga aflagaaday waxa uu noqon karaa mid sharci ahaan lagaaga soo horjeesto oo lagugu maxkamadeeyo waxa uu noqon karaa mid lagugu xiro waxa uu noqon karaa mid cadow lagugu noqdo oo cadow ku abuuro marka sabab aad cadow u abuurto ma jirto adoo dal shisheeye jooga waaya saaxiibada qiimiga leh qodobka iyo qodobada la midka markay meesha ugu gudubno waxa inoo soo socdo sirtii ugu muhiimsanayd iyo macluumaad la helay oo ku saabsan dekada Berbero Imaaraadka iyo Ingiriiska halkaas sheekan idinkaga haya Suudaan aad qorateen oo aad la xiriiri doontaan sida ay qorayaan galabta ilaa caawa warbaahinta caalamka waxa soo baxay warbixin sheegaysa in dekada magaalada Berbera ay Imaaraadka iyo Ingiriiska ay xukunto Imaaraadka Ingiriiska inuu ku leeyahay share ama saami aad u badan saamiga Ingiriiska uu ku leeyahay ay warbixin sirta waxa ay sheegaysaa inaan la shaacinin oo si weyn aan loo shaacinin laakiin marka hore la sheegay dekadaasi inay kontrolsho oo ay maamusho Imaaraadka laakiin hadda warbixinta la helaya sheegaysa lacagtii loogu talagalay foreign investmentiga ama maalgelinta dibadda ah dawladda Ingiriiska ay ugu talagashay in saami weyn oo kamida la geliyay dekada Berbera haddaba arrinta yaab kale ee cabsida leh ku saabsan dekada Berbera iyo sida Imaaraadka Ingiriiska ay u isticmaaleen ma ahan investment in la geliyo dekada in la maamulo Imaaraadka inuu dhul badan oo Soomaalida leeyahay dhulalka muslimiinta uu qabsaday oo xoog ku haysto waxa soo dhan maan inkastoo galabta warbixino qaar aan helnay ay tilmaamayaan in Imaaraadku meelo kamida deegaanada Soomaalida uu ka baxay oo ka watay muwaadiniinta u joogtay sababtiin lama yaqaan Muqdisho kamida dad buu ka kaxeeyay ka saartay baa la leeyahay sida warbixintu ku helayno Berbera dad buu ka saaray la leeyahay laakiin ujeedka taas ma ahan warbixintan waxa ay tilmaamaysaa in Imaaraadka Carabta iyo Ingiriiska investmentiga ay ku sameeyeen dekada Berbera maalgelinta iyo controlka Imaaraadka uu dekada Berbera controlay hub lagu dhibaateeyay ama lagu dilay dadka reer Suudaan waxaana qoray warbixintaas wargeyska Middle East Eye iyo warbaahinta kale waxay leedahay warbixintu hubkii jabhadda RSF ee ka dagaalamaysa gudaha Suudaan Imaaraadkana uu maalgelinayay ama uu caawiyo oo uu leeyahay hubka ay ku dagaalameen ee dadka reer Suudaan lagu laayay dekada Berbera in la barsiyo ay warbixintu sheegaysaa cid u baahan halkaas ay uga noqon kartaa taas mar kale waxa ay muujinaysaa sida Imaaraadka uu Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan ugu soo jiidayo dambi iyo dhibaato iyaga ay lahayn dagaal ay shaqo ku leeyna uu galinayo ha noqoto koonfurta ha noqoto waqooyiga ha meesha ay doonto ha noqoto shaqo aysan Soomaalida lahayn iyo dambiye ay lahayn ayuu madax u gelinaya waxaana la sheegaa Imaaraadka meel uu soo galay oo uusan xaalad iyo xiisad ka abuurin ma jirto caalamka dalalka uu galo dhan xiisad iyo xaalad buu ka abuuraa ugu dambeyn sidii barnaamijkeeni aroonimo aan ku sheegnay cidii u baahan ay dib ugu noqon karto macluumaad muhiim ah ay ku jirtay afayeenka militariga Israa'iil ee luqadda Carabiga ku hadla Afiqay waxa uu leeyahay Imaaraadka iyo Israa'iil waa walaalo kaliyaha iyo xubnaha muhiimka isku bixiyaan
وحلاي إمارات كوا إسرائيل هو إمارات إسرائيل waxaa la yaqaanaa meeshii ay gasho xaalad bay ka abuurtaa jawi halis ay ka abuurtaa wana sababta dalalka ay Israa'iil ku lug leedahay hadii ahalay Lubnaan Suuriya Falastiin oo dhulkoodii lagala wareegay 1948 markii la soo dhaweeyay 1948 waxay noqotay reer Falastiin dhulkoodii xoog looga saaro wana taariikh jirto meel Israa'iil ay soo gashay oo nabad gashay ma jirto dhulka Carabta iyo kuwa muslimiinta hadda deegaanada Soomaalida qaar kamida waxa toos ugu lug leh Israa'iil iyo Imaaraat barnaamijkii fiidnimo aad kala socoteen kow Somali Media caawa inta ayaynu ku soo xiranaa tan iyo kulantin dambe nabadgelyada Ilaahay dushiina assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ruushka waxa uu ka daadgureeyay gudaha Israa'iil muwaadiniintiisa oo ay ugu badnaayeen diblomaasiyiin safaaradda iyo qunsuliyadda ruushka uu ku lahaa gudaha Israa'iil tani waxa ay gudaha Israa'iil ka abuurtay walwal weyn iyadoo 24 saac u dambeeyay la sheegay diyaarado dhowr ah oo muwaadiniin reer Ruushka kuwa ganacsi u joogay kuwa booqasho kale u joogay kuwa halka deganaa oo dhalasho Ruushka haystay yuhuud ka soo jeeda asalkooda dhammaan in laga daadgureynaya gudaha Israa'iil ay hadda ay tilmaamayaan warbaahinta caalamka haddaba tani waxa ay abuurtay walwal weyn iyo cabsi soo wajahday dadka Israa'iil ee gudaha deegaanada Israa'iil ay haysato kusugan ruushka ma bixin faahfaahin iyo waxa dareenka isaga uu qabo ee muwaadiniintiisa uga baxay gudaha Israa'iil mar hadii dawladii ay la baxdo muwaadiniinteeda goob joogta macnaheedu waxa ay tahay goobtaasi waxa ay wajahaysaa khatar weyn oo halis ah ma ahani muwaadiniinta looga diiday inay u safraan ama looga digay Israa'iil inay u safraan laakiin iska daayay kuwa hadda aadi dooni lahaa ama rabay inay aadaan in loo digay kuwa jooga ee la daadgureynaya haddaba macluumaadka kaliya iyo akhbaarta la haya waxa ay tilmaamaysaa in ruushka uu sheegay inuu helay xog sirdoon oo muujinaysa halis weyn oo Israa'iil wajahayso lama garan karo halista Israa'iil ay wajahayso meesha ay ka timid iyo cidda halistaasi ay uga imaanayso laakiin Israa'iil waxa ay ku jirtaa dagaalo fara badan oo bariga dhexe ay ka furtay oo ay kamid tahay dagaalka Lubnaan caawa sidoo kale waxa ay dagaal u ka socdaa gudaha dalka Suuriya Aleppo waxa gubanaysa sar weyn kooxaha mucaaradka dawladda Suuriya ayaa waxa ay wadaan foodo weyn kooxahan ayaa la aaminsan inay hoos ka riixayso Israa'iil sidoo kale Israa'iil waxa ay dagaalo aan joogsanayn ay ka wadaan dhulka reer Falastiin dhinaca kale Israa'iil waxa ay ku lug leedahay dalal badan oo Carbeed dhibaatada ka taagan iyo xaaladda ka taagan gudaha dalka Iiraan ruushka ma bixinin sirta uu hayo ilaha sirdoon ee uu hayo ee sirdoonkiisu u soo gudbiyay laakiin waxa uu qaaday talaabo muujinayso in Israa'iil ay hadda ku jirto khatar weyn haddaba wixii arrimaha ku soo kordho barnaamijyada dambe ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa laakiin sida xaaladdu ay tahay iyo saasaanta iyo talaabada ruushka ma ahan mid sahlan waxaynu toos ugu gudbeynaa qodobka xiga barnaamijkeena fiidnimo caawa